Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Casharkan waa sida loo bedelo magaca loogu bedelo table-kaaga SQL-ka. Way fududahay table-kaaga sida loo bedelo magaciisa. Databases-ka haddeertan iyo abuuran waa kuwana content, hello world. Okay, marka waxaa u baahan tahay inaad tagtid horta database-kaaga inaad furtid. Database content-iga furo haddeertan waxaa ku jira saddexdan table: content iyo new table iyo users meesha ku qoran tahay. Content ina bedelaan waa content ku dhufo click meel ay ku qoran tahay operations oo qaybta kore ka mid ee menus-ka ayaa waxa ku dhufane kadib waxaa helaysaa meel ay ku qoran tahay rename table to. Content-gan ayaa waxa ku bedelanaa marka waxaa rabno. Aniga hadda waxa ku bedelayaa articles waxa qasab laakiin inaad dhahdid go. Haddaadan go dhihin markuu save garanayo xogtaada meeshan ayaa waxaa ka arki kartaa haddeertan inuu ku table content has been renamed to articles. marka waa lagu bedelay ayuu ku dhahay. Hada billahi tawfiiq. Like, subscribe dhankiina waaye. marka wixii su'aal comment-iga lagu soo dhaafo comment-iga ayaad kaga soo jawaabaya.